wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah baan baadiyaha u baxay markaan baadiyihii tagay kadib waxaan la kulmay buu yidhi haweeney reebaadiye ah qurux bay u dhalatay axsan annaasi wajhan yani dumarkay ugu quruxsaneed haween aad u quruxsan bay waxa qaba nin dadka ugu foolxun nin aad u foolxun bay xaas u tahay hoos joogtaa su'aal buu weydiiyey marka wuxuu ku yidhi naatanay naama sidanaad raalli ku tahay adigu ilaahay quruxdan ku siiyey inaad ninka noocan hoos joogta miyaad raalli ku tahay markaasaa waxay ku tiri warkanow waxaa tidhi waa wax xun hadalkaagu ma toosna waadna qaldanta oo maxaa dhacay waxay ku tiri waxaa laga yaabaa ninkan aad sheegayso inuu isaga iyo rabbigii wixii u dhaxeeyey hagaajiyey anigana ilaahay abaalgud iiga dhigay maadaama rabbi iyo isaga wixii u dhaxeeyey uu hagaajiyey abaalgudkii ilaahay siiyey inuu aniga noqday baa dhici karta oo sida loogu abaalguday anuguna aan halleeyoon kharribay aniga iyo rabbiga wixii noo dhaxeeyey isagana markaa cuquubo la iiga dhigay waxay ku tiri sidaas daraaddeed miyaana raalli ku noqonaynin wax ilaahayba raalli iiga noqday allahu akbar imaamkii jaliilkaa caalimkii su-aasha keenay wuxuu yidhi way i aamusiisay buuri oo ma hadal baad sii wadi kartaa halkaa haddii la istaago allah baa sidan wax iigu qaybiyey xikmadduna sidaasay ku jirtaa maslaxadayduna inay sidaa tahay baa dhici karaysa isagana ixsaan iyo wanaag uu sameeyey abaal in ilaahay ku siiyaa dhici karta anigana dembi aan galay iyo xumaan aan galay cuquubo la ciqaabaya inay tahay dhici karaysa allah sidaa ii qoondoyey ii qorsheey miyaana raalli ku noqonayn waa gabadh reer baadiye ah oo baadiyaha ku nool laakiin caqiido toosan oo wanaagsan bay leedahay qismada ilaahay iyo qaybtiisay raalli ku tahay alimaam alasmaci wuxuu leeyahay fa askatatnii way aamusisay buuri way aamusisay ficlan waa saas